Shacabka caasimadda ee magaalada Muqdisho oo sahay iyo agab kale u diray jidda hore ee dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade intaanan u gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad na soo follow gareyso sidoo kaleetana muuqaalkan aad like gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale ah waad ku mahadsan tahay la socodkaada. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sahay laga ururiyay shacabka magaalada Muqdisho u diray ciidamada howlgallada ka wada gobolada dhexe iyo deegaanadii ugu dambeeyay ee laga saaray kooxda Al-Shabaab. Guddiga gurmadka iyo taakuleynta ciidanka ee maamulka gobolka Banaadir ayaa gelinkii dambe Isniinta taliska ciidanka xoogga dalka ku wareejiyay raashin iyo agab kale oo loogu talagalay ciidamada isla markaana laga soo ururiyay madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Raashinka iyo agabka kale ee loogu talagalay ciidamada ayaa lagu raray qaar ka mid ah gaadiidka xamuulka ee ciidamada si ay u geeyaan furimaha hore ee ciidamada ku sugan yihiin iyo deegaanada maalmihii ugu dambeysay laga saaray kooxda Al-Shabaab. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka iyo taakuleynta ciidanka ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa sheegay in Al-Shabaab looga adkaan karo iskaashi iyo isku duubni. Gudoomiye Yabo ayaa ku baaqay in hal dhinac laga noqdo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab haddii aysan taasi dhicin aan ebid laga adkaan doonin shabaabka. Yabo ayaa dadka reer Muqdisho ugu baaqay dadweynaha gobolka Banaadir waxaana ugu baaqay inay marada dhexda ku xirtaan oo har iyo habeen ay u taagnaadaan sidii loo garabsiin lahaa ciidamada dagaalamaya. Yabo ayaa sheegay in taakuleenta ay ku wareejiyeen taliska militariga ay ku muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin ciidamada ku sugan aagga dagaalka. Taliyaha hoggaanka saadka iyo taakuleynta ciidanka xoogga dalka Generaal Dhexe Sharmaake Cali Afrax ayaa dhankiisa sheegay in inta askarigu ay dadkiisu daba taagan yihiin aanun marnaba ka waaban doonin cadowga ayuu yiri. Taliyaha ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadda ay maanta u haystaan inay isaga dulqaadaan kooxda Al-Shabaab isla markaana aanay taakuleynta ciidanka ku ekeen bulshada reer Muqdisho oo qura oo doorkooduna ay ka qayb qaataan. Gaadiidka lagu raray taakuleynta ciidamada ayaa saacadihii la soo dhaafay ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyagoona ku sii jeeda deegaanada Hirshabelle iyo Galmudug.